jaaliyada beesha ciise ee ku dhaqan dalka Faransiiska gaar ahaan magaalada Tunis ayaa maanta deeq raashin soo gaarsiisay 20 qoys oo kamid ah dadka dega dixda feedhaweyn ee gobolka Salal. munaasabadii ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee beesha ciise Maxamuud Xaaji Cali Xasan iyo barasaabkii hore gobolka Salal ahna gudoomiye ku-xigeenka guddigaasi Maxamed Muuse Bucul Buni. ogoreyntii ayaa waxay deeqdan ahayd iskugu jirtay bariis iyo saliid iyagoonada qoysaskani ay aad uga faa'iideysteen deeqdani. ogoreyntii ayaa munaasabadaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee beesha ciise Maxamuud Xaaji Cali Xasan. waxaan u qaybinay halkan dumarka tiradoodu gaaraysa intaas arkaysan ilaa 20 qoys deeqdii aad soo dirteen reer Tunis Soomaaliya reer Tunis oo dalka Faransiiska kamid ah ayaa soo gaarsiiyay dadkaas deeqda kooban iyagoo inta kan hadii aan leeyahay u soo diri doona intana ay u tahay tusaale in meeshii doonayeen wixii u gaadheen waxaan filaynaa hadii aan leeyahay inaad soo kordhisaan inta ay ka badan way jiraan dadkiina waa tabaaraysay. Assalaamu calaykum. maanta anagoo joogna magaalada Saylac waxaanu halkan raashin ugu qaybinay 20 qoys oo ah dadka degan deegaanka degmada Saylac gaar ahaan feedhaweyn meesha la yiraahdo. deeqdaasi waxay naga soo gaadhay oo u soo walaalahood u soo gudbiyay ugu soo tabarucay qurba jooga ciise ee ku dhaqan magaalada Toulouse ee wadanka Faransiiska. waa markii ugu horeysay ee qurba jooga Faransiiska ee beesha deegaanka Saylac ay soo gaarsiiyaan deeqtan oo kala ah. kullay run ahaantii walaala waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa sida aad u soo xasuusateen walaalihiin. maanta tani waa tijaabo fiican inta kalena waxa aan leenahay in ay ku daydaan oo dariiqa ay mareen ay ku caawiyaan walaalahooda jaaliyada ee ku dhaqan magaalada Toulouse gaar ahaan ee wadanka Faransiiska. waxaan halkan niga gudoonay aad iyo aad mahadnaq weyn waa nii soo jeedinayna ilaahay inagana jazaayahay naga siiyo halkaad ka soo saarteen khayr Allah inagu bedelo. tallaabadaasna waa inay kuwa kale ee jaaliyada ee deegaankan ka soo jeeday ayaguna gargaar ka soo jeediyaan. والسلام عليكم ورحمة الله. horta waxa ka tirsanahay waqaasha beesha deegaanka ka soo jeeda Saylac waxaan ugu mahadnaqaynaa qurba jooga ciise loo soo diray daashadatan intii ay gaareen 20 qoys bay gaareen maanta waa siinay waan ii ducaynaynaa inta ay ka badan waa niga sugaynaa sida ay assalaamu calaykum. iyaguna waxa ka hadlay dadkii deeqdani ka faa'iideystay oo iyagu u mahadnaqay jaaliyadaasi. Suuriyada aad maanta aad noogu ballan qaadeen ee aad nasiisay waa niga wada gudoonay iniga oo Maxamuud Cali iyo Buuniba oo meesha ay ka joogaan waqtiga maanta hadduu alla yiraahdo abaarto ayna saameysay maanta sabkaan soo gaaray de wixii dambe hadduu alla yiraahdo imani doonana waan ogaan doonaa intii soo gaadhay magan aliya magan quraan baan Buuni iyo Maxamuud Cali aan ka leenahay iyo inamadii soo diray iyo inamada joogay goobaha bay wala joogo dhabba gobolka Saylac Salal waxaan ku niri nabadgeliyo caafimaadkana waa nigu mahadnaqnay. inamadii Faransiiska ka soo diray inamada xadka Faransiiska ka soo diray way mahadsan yihiin. way wal mahadsan yihiin. Abdul Maxamed Abdullaahi Shinila News magaalada Saylac.